سلام مرحب شعب المسلمين رحب asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal maanta waxaynu ka hadli doonaa siiradii nebigeena sala allahu calayhi wasalam. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa ka ugu sharafta badan abuurka ilaahay, waana ka ugu fadliga badan ambiyada ilaahay soo diray. sidoo kale waa kii ugu dambeeyey nebi lasoo diro sala allahu calayhi wasalam. abtirsiimadiisuna waa sidan: muxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdimudalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusaya ibnu kilaab ibnu murra ibnu kacab ibnu lu'ayi ibnu gaalib ibnu ibnu malik ibnu nadar ibnu kinaana ibnu khusayma ibnu mudrik ibnu ilyaas ibnu nasaar ibnu macaad ibnu cadnaan. sida la sheego, cadnaan waxa uu ahaa duriyadii nebi ismaaciil ina nebi ibraahim calayhi salaam, laakiin sida la isu waafaqsan yahay si dhab ah looma garanayo tiro iyo magacyaba inta u dhaxaysa cadnaan iyo ismaaciil calayhi salaam. abtirsimada hooyadiina waa sidan: aamina bintu wahab ibnu cabdimanaaf ibnu zuhri ibnu kilaab. kilaabna waa awowga shanaad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam. marka loo eego dhanka aabihii iyo hooyadiina waa asal qura, waxaana ay ku kulmaan kilaab. kilaab magaciisa dhabtahi waa xakiim. sidoo kale waxaa la yidhaah curwa, waxaana kilib loogu bixiyey waxuu ku ugaarsan jiray ayda. qabiilka nebiga calayhi salaatu wasalaam: nebigu waxau ahaa qabiilka quraysh, waxaana loogu markhaati kacaa inay lahaayeen sharaf, arrinkooda iyo go-aankoodana uu sarreeyey. asalkoodana wuxuu ahaa mid soo jireen ah, meel sharaf leh ayaynay ka joogeen carabta kale. laqabkoodana waxau ahaa waa qurayshe fihri ibnu maalik ama nadar ibnu kinaana. nin kasta oo kasoo jeeday qabiilka quraysh waxay ahaayeen hogaamiyayaal iyo inay ahaayeen kuwii ugu sharafta badnaa xilliga. waxaana ka dhex tilmaanaa qusaya, magaciisuna ahaa sayid. waxa uu kaga soconaa dhowr sifo oo uu lahaa, waxaana ka mid ahaa waxaa kii ugu horreeyey ee ku dhigay kacbada gacantiisa. kacbada waxa uu furi jiray cidda uu doono iyo wakhtiga uu doono, waana kii dejiyey quraysh bartamaha maka, isaga oo dejiyey maka gudaheeda. markii hore waxay degi jireen maka hareeraheeda iyagoo ku kala dhex jiray qabiilada kale. sidoo kale qusaya waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee bilaabay waraabinta iyo martiqaadka dadka xujayda ah, isaga oo siin jiray biyo macaan oo lagu qasay timirta ama malabka sharaabkiisa ama sabiibka sharaabkiisa iyo wixii la mid ah. waxaana uu ku diyaarin jiray sharaabkaas darar waaweyn oo ka samaysan harag, kaasoo waraabin jiray xujayda. qusaya kacbada waqooyigeeda ayuu ka dhisay guri loo yaqaanay daarunadwa. gurigaasi waxaa guri ay ku shiri jireen madaxyaweynta quraysh. sidoo kale waxa uu ahaa xarunta dhaqdhaqaaq ee bulshada quraysh. guur ma dhici jirin, arrina ma aanay dhammaan jirin ilaa guriga lagu dhammeeyo. qusaya waxa uu ahaa mid gacantiisa ay ku jirto calanka iyo hoggaanka. lama xidhi jirin calan dagaal, haddii la xidhayana waxaa xidhi jiray qusaya. qusaya waxa uu ahaa mid deeqsi ah oo caqli badan. waxa uu ahaa nin codkar ah oo hadalka uu yidhaa uu si toos ah ugu fuli jiray dadkiisa dhexdiisa. qoyska nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo yaqaanay qoyskii reer haashim, iyada oo loo tiirinaya magaca qoyska awowgiisa labaad ee haashim. haddaba haashim waxa uu dhaxlay kaalintii qusaya ee waraabinta iyo martisoorka xujayda. hawshaas isagana waxaa kasii dhaxlay walaalkii mudalib. dabadeedna waxay dib ugu soo noqotay caruurtii haashim mar kale, ilaa iyo diinta islaamku ku soo gaadhay iyagoo xaalkaa ku sugan. haashim waxau ahaa kii ugu sharafta iyo karaamada badnaa dadkii joogay wakhtigiisa. haashim waxaa loogu bixiyey roodhida ayuu burburin jiray, waxaana uu ku dhex dari jiray hilib. thurayda cunno loo yaqaanay ayuu ka samayn jiray, kadibna dadka ayuu uga tegi jiray si ay u cunaan. sidaas ayuu kula baxay magaca haashim burburiye, balse magaciisa saxda waxa uu ahaa camri. haashim ninkii jideeyey labada safar ee jiilaalka yeman loo rarto iyo safarkii xagaaga ee shaam loo rarto ayuu ahaa. haashim waxaa loo yaqaanay sayidkii maka.